يا أيها الذين آمنوا واتقوا الله قولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبه ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد maanta oo Arbaca ah oo taariikhdu ay tahay 19 bisha 11aad 2025 maxkamadda gobolka Galgaduud qaybta ciqaabta waaxda tashiga oo kala ah garsoorayaasha Sheikh Cabdicasiis Ciise Cali number 2 Axmed Aadan Cilmi 3 anigoo ah Sheikh Xasan Cabdullaahi Cali gudoomiyaha dacwada sidoo kale kaaliye ay ka tahay Fartuun Axmed Maxamuud maxkamaddu waxay u fadhiisatay dhageysiga fadhiga koowaad ee gal dacwadeedka nambarkiisu uu yahay MGG DGG DL 17/225 fadhiga dacwada waxa goobjoog ka ah xeer ilaaliyaha ku matalaya dacwada xafiiska xeer ilaalinta guud iyo eedeysane Cabdi Fataah Cali Xasan mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh taariikhdu markay ahayd 18 bishii 11aad 2025 ayaa xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Galmudug u soo gudbiyay maxkamadda sharafta leh ee waafaqsan qodobka 71aad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed oo eedeysana ka yahay Cabdi Fataah Cali Xasan Diiriye in Xaawo Cabdi Cilmi 20 jir ah ku dhashay Dhuusamareeb degan Gurceel baaris iyo dabagal ay sameeyeen hay'adaha ammaanka waxa lagu guuleystay in la soo qabto eedeysanaha asagoo baxsada waxaana la horgeeyay maxkamadda taariikhdu markay ahayd 17 bishii 11aad 2025 mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh Cabdi Fataah Cali Xasan wuxuu ahaa dhalinyarada ku shaqaysata bajaajka asagoo si nabad ah uga shaqaysanayay magaalada aysan jirin wax dhib iyo tacaddi oo u geystay Allah u naxariistay marxuum Deeq Cabdi Jaamac Cabdi Fataah wuxuu iskiisa u go'aansaday inuu dilo Deeq maxkamadda sharafta leh waxaan maanta adduuna biriyo aakhira walaalkayo maanta iga soo horjeedo aan ogahay marxuumkay asagoo dhalay inay igu siran yihiin aan ogahay mas'uuliyadda maanta aan haayo ka dhintana inuu xaquuq ugu leeyahay asaguna xaquuq ugu leeyahay أنا قدنا لا هذا أدوك أنا هذي عيب وكتب هذا كل عيب هرتيد وحققتي إنه كسر دليل. مدير قدي من قرص على المحفظة الشرف تلا طارق نمرك يكون بيننا لحية طبعاً كي بشان عبارة حال سعوه بينمو واحد يجمع قرعة لك دعاي للأولو مساجد كمنور ديل لو جيستي الله ونحرسته مرحوم داق عبد الشامع. بس الوقت يا سعادة النسوق قارتي حفظك سيدي وحكوب حي قابتي si uu gubto waajibaadkiisa ka saaran una faa'iideysto saacada dahabiga oo aan laga fadarayn cadeymaha goobta yaal isla waqtigaas wuxuu tagay xafiiska goobtii wuxuu ka qaaday waxyaabo cadeynta meesha yaalay haday hayaan qashiraan haday hayaan gaarigii sidoo kale marxuumkiina waxa loo diray dhakhtar si uu cadeeyo dhimashadiisa isla muddadaas waxaan uga daba tagnay dhakhtarkii si aan u helno warqadda dhimashada una soo xaqiijino qofku inuu intay iyo inta meelada xoog yaalaan 2 saac iyo bar isla habeenkaas waxa gacanta soo galay eedeysanihii kiiskan ku eedeysnay waxa isla markii lagu wareejiyay xafiiska baarista dambiyada CID waxa isla goobtii ku wareystay waxa uu jawaabayay eedaas loo soo jeediyay waxaanu si qayaxan oo cad ugu jawaabay aniga ayaa dilay waxaan u dilay arsi sababtoo ah ilma adeeradiis ayaa waxay dileen nin aan ina adeerkaya waa Saddex Alif Maxamed Axmed Maxamed waxaan ka tirsanay saldhigga booliiska degmada Gurceel waxa ay taliyaha qaybta OB-ga ee saldhigga ahna baare ka tirsan saldhigga 16 bishii 11aad 16 bishii 11aad 2025 waxa dhacay fal dil ah aniga waxaan ku sugnaay saldhigga booliiska markii aan maqlay inuu falkaas u dhacay ciidamadeena howlgalkii iyo hawsha ay galeen waxaan ahay baari ugu horeeyay oo horta tagay goobta oo gabadheedu ka dhacay waxaan tagay goobta oo ku dhintay marxuum Deeq isla goobtii markii aan tagay ciidamadeena ay fakadkii eedeysanaha iyo hawsha ay ku jiraan howlgalkii aan isku dayay inaan cadeymihii meesha ugu soo horeeyay aan aruuriyo oo qabto wixii ugu horeeyay arka waxay ahaayeen iyadoo la qaaday marxuumka oo loo qaaday isbitaal Faykaar ayaan tagay goobta
goobta markaan tegey daaqadda gaariga oo watay marxuumku ilaa daaqadda hoosteeda iyo meesha gaariga maraayadiisa hore ku aadan oo isbitaalka Al-Amiin iridiisa ah qayb waxaa jirta oo dhismo ka socdo oo isbitaalka iridiisa ah qaybtaas ay gaarigu ku sii jeeday ilaa 13 fuuq aan meesha goobta ka qabtay karamsikii koobaad waxaan ku xijiyay markaan intaas oo cadeymaha ah meesha yaala iyo goobtii aan tagay ka bacdina waxaan tagay isbitaal Faykaar iyo meesha marxuumka la geeyay waxaan u tagay marxuumka meedkiisii ayaan u tagay oo soo xaqiijiyay in isbitaalka yaalo kadibna waxaan u soo laabtay saldhigga booliiska baaraha saldhigga iyo aniga oo markii dambe isku nimid saldhigga ayaan u soo laabanay waxaa la keenay eedaysana Cabdifataax la keenay saldhigga booliiska oo ciidanka booliiska ay soo qabteen eedaysana markii la keenay waxaan goobjoog ahay eedaysanuhu wuxuu noo sheegay inuu dilay marxuum Deeq Cabdi Jaamac waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa garaalna uu jiray horey u jiray inay u fiiriso qodobka afartanaad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo ah sifaalaha dembiga fududeeya eedaysanaha maxkamaddu ma mahadsanta maadaama maqraatiyaashii aan keennay ay caddeeyeen in uu eedaysana Cabdifataax Cali Xasan uu yahay uuna hortooda ka qirtay ninka dilay oo sida kaska u dilay marxuum Deeq Cabdi Jaamac maadaama aan keennay video caddeynaya oo cadeymaha ugu adag ay ka mid yihiin maxkamadduna ay arki kartay oo fiirisay inuu yahay dharka oo hadda qabo eedaysanuhu asagoo qaba caddeynayana inuu dilay marxuumka asagoo si kasa u dilay uuna caddeynayo inuu 10 xabadood marxuumka uu ku dhuftay qorigaas aan soo bandhignay oo ka mid ah cadeymihii oo uu sheegtay inuu yahay qori asagoo uu leeyahayna uu qirtay oo ka hor qirtay fiidiyowga uu ku qiranayo inuu u soo gatay oo kaliya inuu ku dilo marxuum Deeq Cabdi Jaamac oo wax uu ka qabo uu jirin oo u dilayo aana qabiil oo kaliya uu u dilayo maadaama cadeymaha si waafaqsan qodobka 163 aan cadeymahaas aan iska rogno oo keenay maadaama shariicada islaamka iyo qaanuunka dalkuba ay xarimeen dilka sida ku cad aayadda 93 ee suuratul Nisaa maadaama uu eedaysanuhu uu jibiyay qodobka 434 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maadaama horgeyntii looga sameeyay maxkamadda horteeda uu ka qirtay suulkana ka saaray inuu dilay marxuum Deeq Cabdi Jaamac eedaysanuhu uuna ka hor cadeeyay maxkamadda maadaama aan cadeynay eedaysanuhu inuu yahay uuna qirtay qofkii galay dembiga dilayna marxuumka Allah u naxariistay waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanayaa inay aqbasho maaragtay aragtida xafiiska xilaalyaha guud uu ku soo eedeeyay eedaysanaha oo ah qodobka 434 ayna eedaysana Cabdifataax Cali Xasan ay ku hesho eedda ku xasan aayadda 445 suuratul Maa'ida aayadda 178 suuratul Baqara iyo qodobka 434 oo ah dil toogasho ahna qisaastii marxuumka si uu u dhadhamiyo xanuunka xabadihii noolnoolaa oo uu ku dhuftay walaalkiis. Assalaamu calaykum. xukunka maxkamadda gobolka Galgaduud ayadoo cuskanaysa asbaabta sare ku xusan waxay ku heshay eedaysane Cabdifataax Cali Xasan Diiriye in Xaawo Cabdi cilmi 20 jir ah ku dhashay Dhuusamareeb degan Gurceel inuu yahay dembiilaha galay dembiga lagu soo eedeeyay sidoo kale maxkamaddu waxay ku heshay qodobka 434 heerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxay ku xukuntay Cabdifataax Cali Xasan Diiriye in Xaawo Cabdi cilmi 20 jir ah ku dhashay Dhuusamareeb degan Gurceel dil toogasho ah oo qasaastii ah ex marxuum Deeq Cabdi Jaamac in Caasho
xundubay jaamac 37 jir ah ku dhashay gurceel deganaa gurceel si waafaqsan aayadaha qur'aanka ee kala ah 45 suuratul maa'ida iyo aayadaha kala ah aayada 178 aayada suuratul baqara iyo qodobka 434 saxiixka ciqaabta Soomaaliyeed xukunkan waxa loo cuskaday asbaabaha sare ku xusan wuxuuna soo baxay maanta oo taariikhdu tahay 19ka bisha 12aad 2025 wabillahi tawfiiq Ramas Hotel and Restaurant waxa uu leeyahay adeeg dhameystiran waxaana ku diyaara qolol jiif oo heer sareeya holka aroosyada iyo shirarka maqaayad furan 24 saac oo leh raashin dheef iyo dhadhan macaan internet xawaare sare leh wiish iyo amni joogto ah Ramas Hotel waa doorashadaada ugu fiican waxaana uu ku yaalaa Bakaaraha agagaarka isgoyska Carweydka saaxiib aabaha kula hadlaya wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Soomaali Suudaneys kow bes Allahu akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aaba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allayle haba u labayn Soomaali Suudaneys waliba waa isbitaalka kaliya ee ku guuleystay 7 sano isku xigta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya laga soo bilaabo 2019 ilaa hadda Soomaali Suudaneys Hospital saaxiibka bulshada SSH Premier Wallet baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega uma baahni telefoon walba ee waxaad u baahan tahay tayo iyo damaanad la hubo Samsung waa jawaabta baahidaada telefoon ku raaxayso maqalka iyo tayada wanaagsan ee telefoonka Samsung kana qaado nooca aad doonto ee Samsung Mobile oo wata damaanad 2 sano ah ogow hadii uu ka ciladoobo si lacag la'aan ayaa lagugu farsameynaya ama lagaaga bedelaya Samsung Original